بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسو دوادا SMCC maanta ciwaankeenu waxa uu ku aadan yahay inaan ka hadalno maskaxda waa tan hagta oo hogaamisa qofka waxa ayna ku horseedaa qofka aad noqonayso waa halka aan ka fikirno si aan go'aan u gaarno maskaxdaada iyo hab fikirkaaga waxa ay mas'uul ka yihiin heerka aad bulshada ka dhex taagan tahay ama heerka aad bulshada ka dhex taagnaan doonto iyo darajada ama magaca aad ku dhex yeelan doonto bulshadaas maskaxdu waa mid ka dhex saarta dadka waa mid ku bixisa magaca hal abuure waa mid ku bixisa magac ay dadku jecel yihiin waa mid ka dhigta in lagu yeero in dheer garad iyo magacyada la jecel yahay tusaale hadaan kaaga sheekeeyo bal fiiri magaca Einstein markii aad maqasho durbadiiba waxa kugu soo dhacaya qofka uu yahay waxa aad garwaaqsanaysaa in aad magacaasi taqaanid sababta loo xasuusto Einstein ma ahan in uu ahaa qof qurux badan mana ahan in uu ahaa qof dheer ama qof dadku ay jecel yihiin asaga ayaa magaciisa reebay oo dhalaaliyay maskaxdiisa si loogu yeero aabaha fiisigiska markii uu dunida ka tagay kadib haddaba maxay tahay maskaxdu sidee ayaynu u shaqeysaa qaabkeedu sidee ayuu u egyahay cilmi intee leeg ay dunidu ka gaartay barashada maskaxda waxa aan maskaxda uga hadlaynaa muuqaalo xiriir ah oo kan bilow u yahay maskaxda waa mid ka mid ah xubnaha ugu waaweyn ee ku jira jirka aadanaha waxa ayna ka kooban tahay unugyo badan oo dareen wadayaal ah kuwaas oo si saa'id ah isugu dhow unugyada ku jira maskaxda waxa ay gaarayaan in ka badan 100 bilyan oo dareen wadayaal ah waxaana isku xira in ku dhow 1 trilyan oo isku xirayaal ah kuwaas oo loo yaqaan synapse waa habka dareen wadayaasha ay isugu gudbiyaan fariimaha si maskaxda loo gaarsiiyo